ilkaha la xirto muxuu sharcigu ka qabaa? mararka qaar waxaa dhaca gowsaha iyaga oo bad qaba baa la saarayaa si ilkaha la isugu soo hagaajiyo, sidoo kalena fanaxda waa la iska xiraa. wixii iliga loo saaro ama loo qoro ama loo dhuubo xarago iyo qurux darteed waa shay xaaraan oo bannaanayn. saa'ilka xiga wuxuu leeyahay ilkaha birta lagu xirtaa ma bannaan tahay? fanaxda ma iska xiri karaa anigoo ilkaha isku dhajinaya mar haddii ilkihii isfuulfuulka iyo wax lamida ay yihiin oo ceeb uusan ku dhalanin qofka oo ilkahan soo baxay ka timid lagu hagaajinayo ama xanuun iyo wax jira lagu daweynaya dhibaato ma laha. laakiin ilkaha inaan la qorqorin weye, qayb waa la saari karaa, laakiin ilkaha in la qorqoroo la dhuudhuuboo la yaryareeyo. walmutafallijaati lilxusni waay kuwii fanaxda samaysanaya iyo ilkaha kuwii qorqoraya kuwa xadiid gaara ku soo aroorayo lama ogola. washarku waxaa weeyaan waa ilkahaasna lagu samaynaya ilkahoo la jara weeye. ilkihii baa la jarahayaa nooc ay qofkan uu rabo u samaynaya iligii yuu jari. ilkihii way siman yihiin oo wax maaragtay foolxumoo ka muuqata mal iligu hadduu ama kala dheer yihiin ama meeshii bayski loogu talagalay baysaanin uu ka soo baxo in la hagaajiyo dhib ma leh. qurux raadis weeyaan waxa la diidan yahay. ama cilaaj hadday tahay dhib ma leh. maxaa yeele xadiidka abu daawuud iyo kayrkii warinayaan ayaa waxaa la socotay alwaashimata walmustawshima min gayri daa'in. way bedelaysaa oo washri bay samaynaysaa dulduleel yacni jira la'aan. amaa shaygii haddii qofkii maalan farihiisi far ziyaada la socoto farti baa laga goynayaa, ilkihii baa qaar meeshii loogu talaga meelahana ka soo baxeen oo maaragtay loo hagaajinayaa, iyo jidhkiisiba maaragtay nabar iyo waxbaa gaadhay ama shil buu galay, qaab maaragtay waxaa ka soo baxay ama jabitaan ama qaab aan saxayn buu u kamay ama qalitaankii lagu sameeyo jidhkii ayaa qaab foolxumaan. marka in dib loo hagaajiyo oo sidii rabbi u khalqay dib loogu hagaajiyay middaa dhib ma leh. ee waxaa la diidan yahay isagoona waxba qabin isbeddelkay gabadhu ay samaynayso. intaasoo dhamma waa lacnad rabbi baa ku dhacdayba. idan halkan waxaanu garanaynaa lacnad rabbi haddii la sheegayna waa kabiiro weyn weeye arrinkaas. kabiiro aad iyo aad u weyn wey. akhawaatii fi lcaqiida arrintaas isbeddelka la samaynhayo aad buu hadda u badan yahay oo gabadhii moodeyl soo baxay weeyaan baa lagu leeyahay.